شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. kusoo dhawaada xalqadii labaad iyo barnaamijkeeni khayru nisaa'il caalamiin, dumarka kuwooda ugu sharafta badan baan insha allahu tacaala taariikhdooda ku jirna, oo insha allahu tacaala aan weli inoo socoto taariikhdii maryam binti cimraan, oo insha allahu tacaala markii dambe noo xigi doonto mataqaana qisadii aasiya oo uu qabay mataqaana fircawn. sidoo kale waxaan ku xijin doona qisadii mataqaana khadiija binti khuwaylid umilmu'miniin radiyallahu canha. kadib waxaan ku xijin doona aan ku dhameyn doona qisadii alfaatimati alcadraa faatimati binti muxammadin sala allahu calayhi wasalam. waxaan maraynaa walaalayaal xana hooyadii maryam oo dhashay oo markaas tiri ilaahayow waad la socota wixii aan dhigee, ilaahayow waxaan dhalay waxaa waaye waa gabar, walaysa dakaru kaluntha. ilaahayow macnaha dee isku mid ma ahan ragga ama dhadiga, labka iyo dhadiga iyo ilaahayow isku mid ma ahan. lianna waqtigaas leana way yaboohday, waxay tiri ilaahayow waxaa waaye waxaan u yaabo ama kuu nadray haddii wixii aloosha ku jiro aan dhalo in aan maaragta aan ka dhigo aanan aniga aanan waxa ku nifca macnaha aanan ku intifaacino oo aan u bixiyo jidkaaga, oo cunugaasoo noqdo cunug adiga jidkaaga iyo mataqaana jidka islaamka iyo baytul aqsa oo u shaqayn doono. marka waxay ilaahay laakiin gabar bay noqotay, haddana miyayna jabin. waxay tiri walaysa dhakar kal untha, macnaha isku mid ma aha rag iyo dumar isku mid ma aha. walaalayaal taas waxaan ka baranaynaa ilaah subxaanahu watacaala si gooni ayuu u abuuray ragga oo qaasiyaad waxyaabo khaas ku leh buu ilaahay ugu sameeyey. gabdhahan ilaah subxaanahu watacaala si gooni ayuu u abuuray waxyaabo khaas ku aan ilaah subxaanahu watacaala u sameeyey. qof walbana waxaa mas-uuliyad gooni iyo shaqo gooni ilaah u sameeyey. gabdhaha ilaah jalla jalaaluhu wuxuu ka dhigay in ay wax dhali karaan oo carruurta nuujin karaan, soo aan fahmin. ragina ilaah jalla jalaaluhu wax ma dhali karaan, kuwa wax dhala ilaahay kama dhigin, laakiin wuxuu ka dhigay kuwo mas-uuliyad la saaray takliifka inay reerahooda mas-uul ka noqdaan oo caruurihii ma garanaysa ay u soo shaqeeyaan, u ordaan, soo aan fahmin. marka isku mid ma ahan. ilaahay quwadii gabadhii uu ragga siiyey ilaah jalla jalaaluhu gabdhaha ma siinin, quwadii gabdhaha la siiyeyna allah subxaanahu watacaala ragga ma siinin. waa xikmad ilaahay. laakiin maanta caalamka waxaan ku jirnaa maxaan ka faa'iidi karnaa walba caalamka maanta waxaan ku noolnahay dad baa jiro soo baxay gaalada ay rabaan inay bal ay dhahaan ragga iyo dumarku waa siman yihiin. war may simanaan karaan? ilaah jalla jalaaluhu maba simin. qof walba si gooni ilaahay u abuuray, shaqo gooni ilaahayna waa siiyey. marka waxyaabaha yaryar oo sheekooyinkaas mataqaana oo raqiiska ahaa gabdhaha aysan mataqaana aysan maaragtay meel ilaahay aysan maaragtay ku ridin. marka waxay tiri ilaahayow laakiin sidoo kale gabdhaha iyo wiilasha dee waxaa waaye qof walba gooni baa u abuurtay ilaahayow, laakiin haddana miyayna jabin. wa inii samaytuha maryam, ilaahayow gabadheedii waxaan u bixiyey maryama ayaan u bixiyey. maryam waa magac fiican, soo aan fahmin. meesha waxaan ka fahmaynaa carruurta markay dhashaan in isla markiiba magac loo bixin karo. taasna waxaaba maaragtay dhabeynaya axaadiis badan oo laga wariyay nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam. nabi maxamed sallam markuu wiilkiisii u dhashay ibtaqan ibraahim wuxuu yiri subaxdii markii la gaaro wuxuu ilaahay xalay habeenkii ilaa jalla jalaaluhu wuxuu igu barakeeyay wiil ilaahay igu barakeeyay waxaan ugu magac daray aabahi ibraahim. sidoo kale anas bin malik wuxuu yiri markuu mataqaana walaalkii cabdullaahi uu dhashay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baan u geeyay subaxdii hooyada bay inta yidhi wuxuu maxamed u geeyo bal taxniiq lagu soo sameeyay timirta inta in yar carabka maaragtay loo soo marmariyo, kadibna markaas loo bixiyay maaragtay cabdullah. marka meeshaas macna carruurta markay dhashaan waxaa fiican in isla markiiba magac waa loo bixin karaa. marka maryam magacii baa loo bixiyay. waad ogtihiin marka maryama waqtigay nooleed macnaha hooyada waqtigay nooleed cimraan iyo xanna waqtigay noolaayeen waqtigiyaas nabi waxaa ahaa nabi zakariya calayhi salaatu wasalaam. taariikhdana mataqaana kitaabka sida aan kasoo guurino kitaabka albidaaya walnihaaya, lianna taariikhda haddaan akhrisanayno insha allah waxaa inteeda ugu badan kitaabu albidaaya walnihaaya lilimaam ibn kathir baan insha allah aan kasoo guurinaynaa. لأنه كتبه كوضا مارك تاريخ هذه اللي هذا أما قصص كأما تاريخ كان هو
saxsan waaye marka النهاية بداية ونهاية sheekha wuxuu leeyahay sida jamaahirta culimada qabaan in ay qaraaba si wax ay ku ahaayeen macnaha Zakariya alayhi salaam wuxuu qabay waxa la yiraahdaa marna waxay leeyihiin wuxuu qabay habareer mataqaana Maryam habareer mataqaana habareerteeda culimada qalin waxay leeyihiin ma qabino Maryam walaasheeda ayuu maartay qabay laba goorba marka hore adi waxay isku ahaayeen isku dhowaayeen walaalayaal marka hadalkii kula cilis waxay tahay marka Ilaahayow waxa Maryam baan u bixiyay Ilaahayow magan baan ka galay ayada iyo waxay dhashay baan shaydaan ama ayaan magan ka galay Ilaahay waxaan ku weydiisan macnaheedu waxay tahay oo adaan fududay macnaheeda Ilaahay waxaan ku weydiisanayaa in aad ma taqaan aad badbaadisid ayada iyo duriyadeeda oo aad ka badbaadisid shaydaan sida xadiis badan oo Ilaahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo laga wariyay Abu Hurayra uu warinayo in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri caruur cunuga ma jiro oo dhasha illa shaydaan waxa waa u taabtaa oo markii cunuga soo baxo asagoo oynayo ayuu maxay ayuu soo baxaa liana shaydaan ba waxa markii cunuga la yiri markuu dhalan rabo shaydaaminta waxay sameeyaan way meesha isku ururiyaan marka way ku dadaalaan way ku tartamaan qofkii gali doona لأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من دم ابن آدم مجرى الدم شيطان وحو دح عرامة دح بودا ديجا بن آدم أما جرك بن آدم يصير ديجا ودح مارته ما شيء أما دح مرة وشيطان كان ساسو مارته ونقول شيء ولا ليه ما فهمين مركي عروته مركي أويان وحليل هذا إن شيطان بماركتي تابتي إنما صار إلا لو مو يعني ومريم بنت عمران يعيسى إلهي سبحانه وتعالى وهو أقبلي وحوق أقبلي دعاذي ما تقانا هو يدو ذا مارتي حنا شو هذا فهمي مركب ماشي سبحانه كبرنا أبو هريرة حويري هداد أول ذكرتين دهان وإنه يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مركب عروت يدين دشان وتكون دعين كرتان والدعاء ذا تبدأ قصة إلهي وحنكها مجان كهاجلني أو أنكو يديسين إن عروتين كبد بايثين شيطان عروتين يوحي لسيد دلي طبعا مركب waxaa leeyahay marka Ilaahay bay ma taqaan balan qaad in gabadheeda bixiso waxaa leeyahay bas wax yar bay haysay kadibna markii dambe waxay tiriday in masaajidkii bay aad dadkii wanaagsan bay u tagtay waxay tiriday gabadha aniga nadar baan galay Ilaahay waxaan yiri Ilaahay hadaad ma aragtay wax isiisina waxaan sameeynayaa jidkaaga baan ku bixinay marka gabadhan qaata oo dahaydeen adeegto marka dadkii meeshii way isku qabsadeen kadib markii dambe sheekada oo kooban way qori tuurteen qoriga wuxuu soo baxay نسيبك عصا بحي زكريا عليه الصلاة والسلام زكريا سوى قاضي مريم أيو سوى قاضي أيو حوك يعني متقانا أي حافظي أيو كان ميل لير وحجراء ومساجك الله يكون عبد جرين بيا وحو سميه ميل أيو سميه سي أي متقانا أي ميشا كجرته قرأك إلى جل وعلا وكفلها زكريا وحكف على قاضي ومسؤول كان وقت زكريا لأن ميشا وتأيدين شاقي حرير باود حي قارو حليها متقانا حوقة بي ولا شيد ومريم بو ولا شيء قوي تاريخ قارن وحيلين وحقوق قوي متقان مريم حبرير متقان حبرير هذا سو ما فاهمين marka walaalayaal intaas waxaan ku soo gaarnay qisadii aan ka soo hadlay dhalashadeeda iyo mataqaana sidii hooyada u dhashay iyo magaciisa loo bixiyay iyo yaa mas'uul ka noqday yaa kafaala qaaday walaalayaal waa xalaqadii labaad waad u jeedaan waqtiina waa ordaya qisadina aad bay u macaan badan tahay laakiin insha Allah taala ilaahay waxaan wadiisanaynaa inuu insha Allah taala kuwa ka faa'iideysta in ilaahay jalla jalaaluhu naga dhigo oo gabdhaha muslimaadka taariikhdan ugu talagalay ee noqdaan kuwa ka faa'iideysta oo inaad ku dayataan gabdhaha mu'minaadka oo Allah subhanahu wa ta'ala quraanka oo noo sheegay waa inaan dhaqankooda qaadano oo taariikhdooda barano لأن ما أنت دد بدن بأشر وحب برتان تاريخ ذاتك عالم كأو ما قرن إثا واحد كيف عيدين لكن حال رأينا برت التاريخ ذاتك وأذيك وحق أنفعك وبرينا ثياب قبلها عروضة ذو برتين إن شاء الله تعالى حلقة صدحات هكم وقعني